saaka dagaal dhacay xabad adaga socota saacan oo hiiraan ka socota madax baan u nahay ay leeyihiin midna Nairobi u dalxiis tagay midna eelayaanu meereysanaya waxa ka dhaqaaqi la nimankii shalay cadala joogay inay dagaalamaan gabi baa ka dhaqaaqi la madaxweynuhu waa madaxweynaha Soomaaliya adaa ummadaan mas'uulka oo shalay ku dooratay adoo mahadsan oo sharfan waxaan ka codsanayaa waqtigeedii waa dhamaaday maanta kadib waxaad ka sugtaana waa in ummaddu rogmato wax dambe laga sugahay ma jiraan haddii xalkii iyo go'aankii iyo dariiqaad u marayeed wax uun mugdi kaaga muuqdana madaxweyne mugdi saaka kadib laga sugahay ma jiree go'aan dhiiran laga qaataa loo baahan yahay go'aan dhiiran laga qaato meeshaas waxa maanta kadib laga sugahay waa wax aad maaragtay wax laga yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiig baxaya dagaaluu ku jira mas'uuliyad kaaga hooseysa oo dawlad goboleed oo aad saaka sugtaana ma jirto ama go'aan kale ka qaado oo ummad mas'uula meesha matasho u dir ama qaynuunka kuu fasaxaye waa laba gobol oo toro saaka u magacaabo arrin kasta saaka oo tilaabo oo kuu furan madaxweynuhu waxaan kaa codsanaynaa saaka inaad tilaab ka qaado meeshaas si security-ga wax looga qabto oo cadowga laysaga burburiyo xanib baa ku xiran xanibka inaad ka furto wax aan xanib ahayn oo ay ku fuliyeen saaka ma jirto meeshaas taa intaasaan kaga gudbayaa tan labaad madaxweyne waxaan rabaa adoo mahadsan madaxweynihii dalkaa tahay culaysyo badan waa kugu gadaaman yihiin waa kugu garaabaynaa laakiin saaka meel Soomaaliya ka mida oo ay xabadi ka dhacayso deegaanka aniga adigu aan ka soo jeedno la yiraahdo hiiraan ayaa ka jira afka laga dhowrin mayo taariikhda history-gu wax qoran waaye aniga adigu waa ka soo jeednaa deegaankaas halkaas laga arkaa saaka meel xabadu ka dhacayso haddaan carabka ku sii dhifto beel baa dagaalamaysa hiiraan degan madaxweyne adiguna waa ogtahay soomaaliyana waa ogtahay adduunkao dhanna waa ogyahay golaha amniga Soomaaliya looga tashanayana qoftooda kuma jirto ayagaana dagaalamaya amni dadkii dagaalamaya aysan ku jirin horumarka laga fila karana de waa kulley intaa uma dhaafayo madaxweynuhu cadaalad baan kaa sugeynaa anoo garanaya shakiro aysan iga jirin in aad arrintaas go'aan ka qaadan doonto madaxweynuhu dadkaa waa dhiig baxayaan xaalkoodu si gurmad dawladeeday u baahan yihiin aragti dawladeeday u baahan yihiin cid ka arrinta saaka ku jiraan ka farsamaysay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in lagu kaalo qorshe dawladeed aragti dawladeed talo dawladeed ayay u baahan yihiin waxyaabaha hadda anoo u cudur daarayaa saaxiibkay wasiirka gaashaandhigga waxa ugu yaran soo qaadanaya waana u cudur daarayaa dabcan information qaldanaa la soo siiyey ee asagoo hadda meesha jiida dagaalka ma tegin ninkan la yidhaahdo luuluule orgigaas iyo kuwa ka hooseeya ninka la yidhaahdo xerow waa isaga ku-xigeenkiisa iyo kan kale orgiga kale ee meesha lagu dilay in la yidhaahdo xaggaa dishay iyo hebelaa dilay waxaa keenaya dadkaasi cid ku matasha miiska shawrkaba ka mid maaha oo madaxweyne shawrka nagama digto baliis xaqna waa u leenahay oo ummadda Soomaaliyeed madaxdu u tahan ka mid nahay welibana wax ummadda Soomaaliyeed u wada yaala baan kaliyan aan qabto weynaa
كلينا قبتوين وما تنتهي أنا دركت أنا وأنا هاي بنا أنا هاي ودين لفتين أنا ساكن مين يا كلي ووركين وأخذه سبب أنا كلفي ورمي دي ما يورك الشغل يسكت له لا لكن سببها كلفت waxaan maqlayay beesha caalamku dagaal leeyahay duqeynta iyo waxa beesha caalamku waxaan rabaa inaan si cad u sheego xilligan aan dagaalada hogaaminayay si cad oo wanaagsan oo maxaan ku iraadayay aan la qiyaasi karin ayaa dawladda Mareykanka xagga cirka ay nooga caawiyay aad u fiican haddana inta ka warqabo wayna caawiyaan laakiin waxaad moodaa sidii hore inaysan ahayn waxaa kaloo inayna caawi jiray xilliyadii dambe oo ka soo bilow bishii 12aad ee 2023 ee la dhamaystiray anteenada xagga nadwooga diyaaradda dowladda Turkiga ayaa ayadana dagaalka ka bilaabay gobolka aan hawsha ka wada hiiraan wixii ka dambeeyayna waa dagaalamaysay labadaba waa mahad celinaynaa annaga cidii qosol lagu kaalmayso qosol kuma hiil buu galay oo mahad celinaynaa sidii looga soo shaqeeyay dawladahaas maxaa Soomaaliya taageera ay noo soo shaqeeyeen ee saaxiibadana waa uga mahad celinaynaa haddana waxaan aad u codsanaynaa in la laba jibaaro taageerada iyo siboodka dadkaas xaalad bini aadanimo meesha ka socota sababtoo waxa la xasuuqaya oo cadowgii Soomaaliyeed uu isugu tagay hal reera in aan waxaan rabaa in sidaa u kala gareeyo aad iyo aad u mahadsantihiin